السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا صاحب ما أنت القاعد قصة مرين دونا حق صابس إنترنت هو هبك أدون كوردن سكو حرية إنه يسكو دافصدان حق لجدسان إنترنت وحقك كوغنيا هاي الشبكات الكمبيوتر هذا هو صحق تسكو دافصدا حب لو يقانو إنترنت بروتوكول على IP وحناك كوغنيا هاي ملايين شبكة jaamacadaha ganacsiyada dawladda shirkadaha kuwaas oo si wada jir ah isu dhaafsada xog kala duwan oo nooc walba leh sida sawirada muuqaalada codadka iyo qoraal internetku waxa uu ahaa natiijo ka dhalatay mashruuc ay sii deysay hay'adda ARPANET sanadii 1999 kaas oo ahaa mashruuc ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka barnaamijkaas waxaa loo aasaasay isku xirka ciidanka Mareykanka iyo jaamacadaha iyo dhammaan hay'adaha cilmi baaris si looga faa'iideysto aaladda mobilada janaayo ee sanadii 1983 ayaa wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka bedeshay protocolkii NCP oo loo soo gaabiyay Network Control Protocol kuna wareegtay TCP ama IP TCP waa Transmission Control Protocol shabakadda internet waxa laga yaabaa inuu la wareego Elon Musk sida hadda ka muuqata internetku wuxuu yareeyay waxyaabo oo ay ku bixi jirtay tamar sida tusaale ahaan waxa maanta wax ka baran kartaa internetka adigoo jooga xaafadda ama guriga sidoo kale waxa laga maarmay inaad maanta meel ganacsi oo aad shay ka iibsato adigoo heli kara dukaamaysi dadka ama online business sidoo kale waxaad arkaysaa shineemooyinkii in laga maarmay oo netka wax aad ka heli karto film ama riwaayad aad rabto sida ay leeyihiin khubarada adduun in uu net noqon doono adduunka khiyaali tusaale ahaan in qofka jooga gurigiisa laga xukumo maxkamadda si online sidoo kale maanta waxa laga maarmay in qaamusyadii buugaagtii ha ahaato mid cilmi iyo mid taariikh marka la fiirsho xagga isku xirka adduun